بسم الله الرحمن الرحيم waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gooni ah aan uga hadli doono mashruucii la magac baxay mashruucii la dagaalanka nuurka islaamka. Buugan waxaa qoray Cabdiraxmaan Cusmaan Jaamac wuxuuna kaga hadlay arrimo dhowr ah. Sheekooyinka buugan aad kaga bogan doonto intii aad akhrisanayso ama aad dhageysanayso waxaa ka mid ah miiska waxaa saaray khamri cas warqad sida saddex geeska saddex xagal u taalo oo ay ku qoran tahay welcome to the brotherhood ku soo dhawow walaalaha walaaltinimada iyo sidoo kale iyadana miiska saareed warqad ay ku xardhan tahay hees magaceedu yahay welcome home ku soo dhawow guriga. Sheekooyinka buugan aad ayay u tiro badan yihiin waxaa ka mid ah ayagana marba dhan haddii aan ka eegno sheekada iyadana aadka nuxurka u leh ee aad buugan ku arki doonto inta aad akhrinayna ama aad dhageysanayso oo aad naga filanayso waxaa ka mid ah Paul ayaa ii soo qoray fariin gaaban oo aanan wada fahmin. Waxaa la gaaray waqtigii uu soo bixi lahaa boqorkii qarsoonaay sug oo u diyaar garow. Fariinta markii aan akhriyay ayay anoo arkaya isma saxday iyadoo weliba gubanaysa. Ninkii la dhihi jiray Wilson wuxuu ii sheegay sheeko waxaana ka mid ah sheekada waxaa maanta aan halkan u joogo ma ahan shidaal ee waa kheyraad ka weyn maaha markii koowaad ee aan halkan imaado waase markii labaad. Waqtigii Unisom ayaa madaarka Baydhabo oo xarun u ahayd shaqaalihii gargaarka waxaa si kedis ah u soo weeraray Jarnaal Maxamed Faarax Aydiid. Ciidamadiisu waxay qaateen kombiyuutarradii lagu shaqeynayay. Kombiyuutarrada waxaa lahaa shirkadda shidaalka iyo macdinta. Haddaba sheekooyinkaas oo aan mid u dul istaagi doono ayaad ka bogan doontaan ee ha mogaanin in aad nala socoto Baris Media. Waxa uu idiin soo bandhigayaa waxbarashada, siyaasadda, sirdoonka iyo arrimaha bulshada. Haddaba ku xirnaa oo ha mogaanin Baris Media.